Cable TV. marka hore waxaan leeyahay Somaliland waa la wada leeyahay aniga jawaabteedu waa la wada leeyahay waa la wada leeyahay dhanka labaadna waxaan leeyahay qaybta labaad jawaabtana waxaan leeyahay haddii la wada leeyahay haddana wax badan oo badan ayaa dhiman marka koobka biyo ku jiraan waxaan leeyahay anigu waa half full not half empty but half full ali waxa laga yaabaa inuu yiraahdo waa half empty laakiin marka dambe meel baan isku iimaanayo koobku hadduu half full yahay iyo hadduu half empty yahay inuu baa ka dhiman kullayba waxba ka dhiman wax badan baa ka dhiman marka iskaayo waafajisay arintaas kamid marka maxaan u oran karaa waa la wada leeyahay intaan aanu iiman waxa dhiman anoo dadejinaya waa horaba waa loo sheego original geography degmadani meel bay ku taalaa calaamadsan oo la yaqaan la yiraahdo Somaliland taariikhna way leedahay at least ugu yaraan ilaa 1880 taariikh bay leedahay oo maxamed cabdulla xasan de markuu bilaabay inuu gobonimo doono de wuxuu ka hadlayay Soomaaliya dad muslimiin laakiin Somaliland ku nool buu ka hadlayay barbaru ka bilaabay laakiin de barava amba kismaayo kamuu bilaabin dagaalkii uu ku doonayay in Ingiriisku wadanka uu sii daayay taariikhdaas waynu wada leenahay waxaynu wada leenahay gobonimadii Somaliland ay heshay ee loogu dhawaaqay bishii June 26 afartii qof ee saxeexayna de magacyadooda waa la yaqaanayo Somaliland ballaadhkeega ayay ka yimaadeen afartii qodob saxeexay qof kamid ah oo magaciisu aad u weyn Xaaji Ibrahim Nuurna de halkan abu ka yimid tolka dad iyo halkan ka yimid buu kamid ah Xaaji Ibrahim Nuur waxaynu wada leenahay heshiiskii sidii doonaba arintu ha u adkaatay heshiiskii lagu gaaray magaalada Burco bishii May 5teedii 1991 heshiiskii lagu gaaray qabyo badan hal yeesho laakiin heshiis baa lagu gaaray oo halka lagu saxeexay oo dadka reer Somaliland ay dad madaxii oo ka socda ay halka iskugu yimaadeen waxaynu wada leenahay heshiiskii dadka miisaan kale ee odayaasha ay hor socodkiihi bishii May 25 1993 lagu qabtay magaaladan Boorama lagu qabtay oo shirkaasuna dabadeed uu noqdo mid dhaliya wixii la oran jiray National Charter dabadeedna markii dambe lagu bedelay wax la yiraahdo constitution qabyaha hada laakiin constitution ina kala wada up to a certain point taana wayna wada leenahay waxaynu wada leenahay saddex doorasho oo madaxtinimo oo wadanku uu galay baynu leenahay oo qof tolka kamidihi uu ku adkaaday mid kamid ah doorashooyinkaas ayaynu wada leenahay waxaynu wada leenahay iyadoo maanta Somaliland ay ka muuqato institutions amba ha noqdaan kuwa public ah oo dawladii ay isku dayday inay samayso amba halkan ku yaalaan amba Hargeysa ku yaalaan amba Burca ku yaalaan amba Laascaanood ku yaalaan ma Cirgaba ku yaalaan iyo kuwa private ah oo ay de ummadu samaysatay oo halkan aad ka arkaysaan ay kamid tahay de Amoud University Elo University iyo jaamacado kale ay kamid yihiin institutions baarlamaano wax badan in laga hagaajiyay yes laakiin way jiraan te baarlamaano dadku ay iskugu yimaadeen wayna wada leenahay now halka taan ku joojiyado in badan lagu dari karo waxaan doonayaa degdeg inaan u galo laakiin maxaa dhiman iyo waxa dhiman sida wax looga qabanayo inta inaan ku soo gabagabeeyo waxa dhiman wax badan oo de koobku waa nus haduu ugu badan yahay waxa dhiman in loo baahan yahay in la isla garto Somaliland 28 sanadood dabadeed in ay gashay anida say la muuqata inay gashay waqti labaad oo cusub oo hor keenaya su'aalo waaweyn oo hadii aan laga gudbin dhabarka ka jabinaya Somaliland yaan soo gaadhay oo xagga dhaqaale iyo xagga bulsho iyo xag siyaasadeed oo caawa ka hadlana intaba taabanaya iyo siyaasad dibadeed ayaa la soo gaaray su'aalo culus oo maanta inoo soo hor fadhiistay oo laga baxsan karo waxa ay la mid tahay waqtiga aynu joognaa waqtigii la isku dayay Somaliland in la aasaasay foundationka loo dhigo iyuunbay la mid waqtigana wax badan su'aalo badan baa taagnaa maantana kuwii la mid ah ma ka culus
أي نهرجوك كوا هدي أن وحبل دقدق وحلوقا قبن أو مسكع عصب أو فرسميسن أو ملفق وحكا أركيسا أو إندهيغو أي يهين 2020 أي يهين هدي أن تالكينينا أنا waxaan qabaa marka dhibaatooyin badan oo culus inay iman doonaan waana ku soo gabagabayn doonaa dhibaatooyinkaasi waxay keeni karaan maxay yihiin marka waxa loo baahan yahay in la qabto su'aalaha in horiyaan waxa ugu horeeya aniga ila tahay in la qabto waxa weeye in dib loo soo nooleeyo anuu xitaa caashiq baan ku tilmaamay in dib loo soo nooleeyo dadka reer Somaliland ku noolay gees ilaa gees iyo indha xaba inay wadankan wada leeyihiin أنا هران تاوغا هذا المدة اللي جوجل أفر شن سنة دود إن دب لو صون نوليو حسيه إن ودن كان لو دليه هاي دب لو صون نولي وأنا واحد قارو البتاعن أو أباهن إلا نوليو لا عسبونيسيو لا نوليو لا عسبونيسيو مرقنا أون ميلا مردقي كرو ويا مشاقة الدنيا قارو البقال إندار ستاز طلبات على بعيه إن دق لوجرتو جون 26 inay tahay maalinta ugu mudan ee ugu weyn ee dadka reer Somaliland taariikhdooda ay ku sheegan karaan oo markaas si dhab ah baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ummaddu ay ugu dhawaaqdo 26 June 1960 inay tahay maalinta maxaan ku raay dib ugu noqonayno marka sanad walba 26 June inay tahay National Day maalinta calankii Somaliland la taagay ee isku keenaysa ee original wadankan oo sideed iyo tobanka May markaan waxaan qabaa inay tahay waxa la yiraahdo auxiliary day auxiliary waxa weeye waa maalin ag socota ya ag socot oo marka ay tahay maalin loo xuso dadaal dad ay keeneen iyo ummaddu ay keentay even dadka aan loo ogolayn taas oo marka loo xuso wadanka Mareykanka 4th of July baanu leenahay waa maalinta ugu weyn laakiin maalmooyin kale ayaa jiro ay kamid tahay for example Veterans Day oo fasaxa oo tabaab la galo fantasiyo weyn la galo laakiin marnaba aan hadayn karin 4th of July inaga 4th of July marka waxa weeye 26 June inay noqoto waxa kale oo degdeg u baahan si farsamo leh in loo galo in dib loo xisaabiyo qaacidada amba formulada baarlamaanka sare gurtida iyo baarlamaanka hoose House of Representatives wakiilada labadaaba in dib degdeg si cilmiyaysan loo eego oo xaq ku jiro oo fikradu ay diib tahay si xisaab cusub loo soo dejiyo oo la israali galiyo ay u baahan tahay anigu halka dhowr amurood haddii su'aalaha la weydiiyo ayaan soo dhigi doonaa oo dhaqaajinaya formuladaas waxay u eekaan karto laakiin daaimka halka aan ku daayo labada maxaan ku rahay meelood ee dadkeenu iskugu yimaadaan guurtida iyo wakiiladaba sida loo galayo iyo kuraasida ummaddu ay u qaybsanayso qaacido cusub in la keeno ayaa waqtigeegii oo goor hore ina soo gaar anu waxaan qabaataa haddii la keenana waxay keenaysaa oo lagu guuleystana waxay keenaysaa ummadda Somaliland in ay isku hayn karto oo la isku qaban karo danahooga iyo dadka yihiin la isku qaban karo la isku ogolaan karo oo marka haddii xitaa la yiraahdo waa la kala badan yahay inta badan iyo inta tiradoodu yartahay majority iyo minority xaqooga ila labaduba xaq bay leeyihiin inta la isku duubo in sidaa la isku hayo taafraad waxa loo baahan yahay degdeg in dawladda Somaliland ay fuliso heshiiskii khaatuma la galay heshiiskaasi oo dawladdu ay la gashay in degdeg loo fuliyana waa loo baahan yahay dawada aynu u baahanahay ayaa kamid Ali walaalkay Dr. Ali iyo reer khaatumana waxa loo baahan yahay inay dadaalka soo kordhiyaan oo meesha ay nala sii hagaajiyaan oo gagada kubadda lagu ciyaaraya ay yimaadaan oo tartanada ay ka qayb galaan ayaanu iyagana uga baahanahay inay gagada yimaadaan iyo looga baahan oo ay ka dhabeeyaan sida Ali ugu hadlaya ay ka dhabeeyaan sheegashada ay sheeganayaan inay Somaliland qayb libaax ku leeyihiin waanu ogolnahay laakiin iyaguna ha ka dhameeyaan oo dadaal cusub baanu uga baahanahay iyagana arintaas tashanaad waxaan anigu qabaa in loo baahan yahay in si degdeg loogu dhaqaaqo in ahzaabtii la furo waqtigeedii markuu soo gaaray in degdeg loo furo waa dawo ayay noo noqonaysaa waayo saddexdii xisbi waxay noqdeen saddex xisbi oo hoosta ka xidhan ayay noqdeen hoosta ka xidhan yihiin kolka in ahzaabtii la furo waa loo baahan yahay waqtigoogina wuu soo dhow yahay taa haddii la helana waxay sii
waraabinaysaa oo sii hagaajinaysaa dimuqraadinimada iyo waddanka wada lahaashihiisa citizenship in la yeesho halka waxaan ku darayaa waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin marka dastuurkii in la furo ayay u baahan tahay dastuurka furidiisu ma aha in wax walba la bedelo waxa weeye meelaha la isleeyahay waxa yaala boogo in la bogsiiyo amba meelaha aan wali dhammayn in la hagaajiyo dastuurku waa wax had iyo jeer ku jira improvement iyo amendments marka dastuurka furniinkiisuna arrimahaas ay noo suurtagelin karaysa talixaad aniga waxa ay la tahay this is very important waxa ay la tahay in degdeg wax looga qabto caasimadda Hargeysa oo magaaladeennii ugu weynayd ah oo meel wanaagsan inaga wada taala oo u baahannahay inaan qurxino oo sii hagaajino waxaynu u baahannahay Hargeysa inaanay waddanka intiisa kala liqin ayaa loo baahay maxaan uga jeedaa taas waxaan uga jeedaa waxa weeye juqraafiga yaryarna ku socoto lugii kabriidka ku socoto soo aad garmaysa dul badan bay khasaara caynkaasi keentay waa wixii Muqdisho dilay weeye taas in wax walba xamar loo doonto wax walba xamar lagu ururiyo oo Hargeysa ay daabiyad noqoto for example marka waxaynu u baahannahay Hargeysa in dib loo xisaabiyo oo marka aan waxaan ku talinayaa oo iga talooyiniga for example sidee ba Hargeysa maxaan ku raay looga dhiga caasimadina ay u noqoto laakiin waddanka intiisa kale ay la wadaagto oo noqon meel wax walba ay fadhiyaan kow waxaan ku talin lahaa for example in magaalada Hargeysa dawladda fadhida in qaarkood laga raro for example wasaaradda xoolaha iyo arrimaha ku saabsan veterinary services caafimaadka xoolaha iyo xoolaha arrimahooda oo dhan ya livestock animal husbandry veterinary services in burca loo la geeyo waayo burca waxa weeye meesha xoolaha inteeda badan ay iskugu soo ururaan inta aan barbare la geeyo halka in la dejiyo halka xafiiska laga dhigo oo xafiiskaasi uu u dhawaado da shaqada ka socota gobolka ay u dhawaato waxaan ku talinayaa in ikadi loo baahan yahay wasaaradda kalluunka iyo arrimaha badda ku saabsan barbare in la geeyo aqligaygu waa barbara in halka la geeyo oo halka maamulkii wixii ku saabsan khayraadka badda iyo kalluunka iyo arrimahaas oo dhan Ministry of Fisheries and Marine Life barbare in la geeyo aniga waxa ay la tahay for example wasaaradda beeraha oo kale wasaaradda biyaha oo kale biyaha iyo arrimahan ku saabsan macdanta baarideed iyo biyaha inta la isku daro laascaanood in la geeyo laascaanood waxay ka mid tahay meelaha ay ugu adag tahay imika arrimaha biyuhu ay ugu badan yihiin aniga reportkii baa dhawaan la eegay magaalada waxa dhibaatada ka haysata xagga biyaha waxay haystaana ay yihiin biyo adag oo dadka kaliyihii cudur badan ku riday magaalada laascaanood halka aynu geyno iyada iyo wixii macdanaha la baariyo caasimad laascaanood haw noqoto waddankay si xalaaleynaysa waxaan ku talin lahaa in wasaaradda arrimahan ku saabsan badbaadada dabeecadda environmental protection magaalooyinka ugu qurux badan Somaliland anu saddex magaalaan aad u caashaqay waxa weeye Boorama iyo Hargeysa iyo Ceerigaabo intuba waxa weeye meelaha ay ku yaalaan ayaa qurux badan dadka ku nool inay gartaan inay qurux badan tahay waa sheeko kale laakiin markaad eegtad isha Boorama markaad sida u soo eegto waxa tuunaysa war meeshan ma Switzerland badbadanaysa laakiin markaad magaalada yar timaadad waxooga yarana haysa marka Ceerigaabo inay noqoto meesha environmental protection agency halka inay noo noqoto aan waxaan qabaa inay u qalanto guurtida anu mar horena waan ku taliyay inama kale waan ku celinaya magaaladan Boorama in guurtida loo soo raro caasimad halkan ay noqoto xaruntii guurtida sare ee Somaliland in halkan laga dhigo waa halkii lagu abuuray halkan hal la kale waxa kale oo ku daraya magaaladan Boorama inay noqoto oo loo soo raro wasaaradda waxbarashada waayo halkani waxa weeye halkii laga abuuray waxbarashada marka Boorama kale inay noqoto meel guurtiduna ay fadhido wasaaradii waxbarashadana xarunteedii halkan ay tahay wax badan baa iska bedeli wadankana way sii xalaaleyn magaalada Gabiley anigu aan ku dhashay waan u yareexanayaa waxaan oran lahaa iyadana waa meel beeraley oo leeyahay Boorama soo gaadho waa beeraley te wasaaradda beeraha agriculture-ka Gabiley hal geey districtgeegu waa meel dadku ay ku beeraan hal geey
هذا الكيجي أن سوق بجبيو أنا جو حيلته أنا وحاسوا أنا جو رأي جي جوي أنت سبقنا أنا جو رأي جي جوي سوا رأي جي جوي واي هذا ذا وحبار دمن دواين ذكين تو واحد سبيسيفيك وواحد دمن قار كود لجود دوين كرو waxaan ku soo gabagabaynayaa my last point sidii horeba aan u bilaabay Somaliland waxay jirtay waa 28 sanadood 28 years 28 ka sanadood wax badan ayaan anigu qabaa in badanna waan u fiirsaday oo lagu faano ayaa dadkan ay qabsadeen iyadoona adduunyadu gacan ku siin ay qabsatay laakiin generation walba responsibility ba horta la generation walba kuweena imiga noole waa weyn aniga caliyaan kamidna yes iyo intiina nadaba joogtiyo kuwa soo socdana shaqada u taala way go'an tahay oo way cadahay hadii aan la iska inda trade waxaan ka baqayaa markaas baqdin baa aniga igu jirta baqdinta igu jirta waxa weeye inaynu garan weyno su'aalaha waaweynayna hor yaala ee wax laga qaban karo inaynu garan weyno inaynu maskaxdeena maalno aqligeena aynu keeno dulqaadkii cali uu sheegayay la keeno dabadeetana la isku dayo in arrimaha wax laga qabto taasan ka baqaya haddii taa la yeeli waayana waxay ila eeg tahay inaynu noqonayno muddo 40 sanadood gudaheed inaynu mar labaad noqonayno a failed state ya dawlad iyo dad saaqiday inaan noqon doono sidii ay u dhacday Somali Republic ay u dhacday inay taasi in hortaalo hadii aan arrimaha wax ka qaban weyno waxaan idinkaga tagayaa marka hadalan ka soo xiganayo nin filosofa oo Spanish ahaan jiray uu dhintay markee jaamacadda Harvard University muddo badan ka dhigi jiray oo la oran jiray George Santayana wuxuu yidhi waa af Ingiriis those who cannot remember the past are condemned to repeat it dadka xusuusan waaya wixii soo maray xusuusan waaya marka dambe waxa isku kalifaan inay ku celceliyaan qaladaadkii taariikhda ay ku soo mareen inay ku celceliyaan yaynaan sida noqon Somaliland yaana inaga beenoobin dadaalka hal kordhiyo waad mahadsantiin thank you very much aan rajaynayaa inaan idin kala baxo idinka iyo barnaamijka maanta laba بين محي تري بورمان كيمي وهذه سؤاشن بالليس ويدينيو ولا حاجرة مسا ولا حاجرة إذن كيدن مسو قاعدين ميلا بدن بصو مراي كلي ولول باجرة إن لبونبونينا مفيعنا innaka idanteenu ku jirtaa Somaliland meeshay marayso hadda ina hore uga sii marto anigoo arday halkan ka secondary school Amuud yaan waxaan ku noqday magaalada Laascaanood waxa yimi magaaladaas nin gobolka Majeerteeniya marka la oran jiray hadda waaga magacooda Majeerteeniyu ahaa oo jaamac dhoof loo oran jiray oo reer buuhood lagu dhashay laakiin aan dhulkaaba shaqul ku lahayn xamar ku koray wax ku bartay dadkii Talyaanigu maamulkii ugu horeeyay Somalization alaa hal ninkaas meeshuu yimi magaaladan Boorama ama aaga bariga ay hadda darafyada lagu sheegay iyo magaalada Berbera xisbiga ka furaa marka wuxuu ahaa ugu xoog badnaa SYL waa 1958 jaamacadda faduu yimi odayaashii buu la shiray ii waramuu yiri waxay leeyeen jaamaco waxaanu rabnaa dawladnimada xamar ka aloosan inaanu ka qayb galno oo annakuna aanu raacno jaamac sheekada kuma dheeraanaya wuxuu yiri war buundo bridge laydin dhisi maayo Laascaanood iyo xamar xamarna Talyaani iyo qaramo madooba maamula idinkana Ingiriis baa idin maamula qolyahaas waxa isla soo ogolaadaan mooyee wax locally
aan iska go'aansan karna maaha waxaan idin kula talinayaa meeshan aad ka mid tihiin taas uunba idin hurane ka mid noqda dowladnimadana la raadiya kuna dadaala in midnimo Soomaaliyeed marka aad ka hawlgashaan horta sababtii dadku ay marka SYL warkeeda u dhaafeen ee kulley factor ahayd ama qodob markii dambe dowr ku lahaa in xisbi USB la sameeyo yay ahay su'aasha lafteedii baan hadda wali isweydiinaynaa xamar intii aan dawlad Soomaaliyeed u shaqeynayay waan u maleynaya dhowr iyo 20 sano inay tahay afgooye iyo xamar iyo jowhar ma dhaafin waxaan isleeyahay in kugu filan dadka shacabka ah madaxda meesha qabqablayaasha firqadahan kala gaargaarka ee badan ee islaamiyiinta ah mid walba ilaa aqoon ilaa heer waad ku leedahay wax u heelaya midnimo Soomaaliyeed oo waqooyiga laguma haya xamar inaan la isku daalin reer Booramaanu nahay waanaku midnimo Soomaaliyeed baan rabnaa wax badan bayn ku seegnay kuna seegi doonaa hadalkii jaamac dhoof ee ahaa war meesha aad joogtaan ka dhex muuqda oo wax ka ahaada oo dowr ku yeesha meesha ay Somaliland ku dambeyn doonto Somaliland ay horta asalkeeda xagee inaga soo gashay taariikhdana waxyaalahan isla ogol lahayna waa jiraan waxyaalo badan oo dhawaan la qoray oo aynan heshiisba ku ahayna waa jiraan oo waliba kuwa la qorayaa ee aynan heshiiska ku ahayn waa kuwa ina kala fogeynaya meeshan guul wadanimo loogama baahnee ummadda tan sidii la isugu keeni lahaa oo la isugu hayn lahaa iyakoo waxaa yar ee ay wada leeyihiin raba inay goonyaha ka joogaan uusan ka burburin laakiin marti cidna u noqon maayaan waxaa yar ee la wada leeyahay niman duulimaad ku ah annaku Boorama uguma aanan iman in la burburiyo uguma aanan iman Soomaalidu marba kii madax ay waxay yiraahdaan qaladi ku dhacdaygan ilaahu meel daran nooga kaxee laakiin ilaahu mid dhaama noogu bedel marnaba ma gaadhno waa caban karnaa wax laga cabtaa oo badanna meesha waa yaalin su'aasha waxa keenay Soomaalidu waxay tiraahdaa sacabka haddaan xeeli ku jirin sacabka haddaan xeeli ku jirin horta asalkiisa maxaa habeenkii loo tumaa maalin cad ma maalin cad sacabka ma la tunto waray su'aashan waa su'aal dhab ah oo qayaxan oo aan la iska indha tiri karin Somaliland waa isla ogeyn Suez Canal markii la dhisay Ingiriisku mar walba mustacmaraadkiisa waxa ugu weynayd India oo markaa India Pakistan iyo Bangladesh iyo Sri Lanka iyo wuxuuba India bay aaga iska ahaayeen inkastoo Sri Lanka ay ka yara duwaneyd taa waaba isla ogol lahay dawlad aynu 4 casho haysana waa isla ogol lahay hadda anigu daraawiishtii kama hadlin islama ogolin oo kuwii daraawiishta la dagaalamayay ee jabinayay yaaba hadda taariikhda cusub qoraya daraawiishtuna uma batirsana afartii casho hadday dhammaatay meelay ku tiilay iyo meel la isla soo hadal qaaday dawladda Somaliland ee afarta casho inay sii jirto lagama wada hadlin
yaanu goobjoog baan ka ahaa nin weyn baan ahaa Amuud haddaanu ka wareegno shiikhu wareegnayna maalinta calanka la taagayo dee waxaan islahaa waaga nin xilsaamadaadba markaa ahaydo dawladnimada iyo khayraadka la socda dadka mar ay gaari doonaan inay u adeegaan afartaa casho laynama ictiraafin inana ictiraaf ma aynan doonan ciddii tidhaaha waana la ictiraafay waa been aan sal iyo baartoona lahayn kaba soo gudub 60kii ilaa 61kii dawlad Soomaaliyeed oo macna yeelatayno ahayn oo 10kii sano 9kii sano horena waxaynu Afrika ugu muuqanay example dimuqraadiya oo madaxweyne fadhiya oo xukunka haya baarlamaanku intuu shiray inuu madaxweyne kala doortay saxaafadda jirto af Carabi iyo af Ingiriisi iyo af Talyaani dawladdu shuqul kuma lahayn radio Muqdisho baa jiray saxaafadoo dhan waxay ahayd private wax habsi la dhigay for political reasons sagaalkaas sano ma dhicin haddana gaabis bay ahayd wax badan baa inaga lumay doorashooyinkii xisbi la'aan baa jirtay haddana aan jirin maantadana aynu joogno xisbiyaal malihin markay doorasho timaado yun baynu u ororodnaayeen xisbi 4 sano ee doorashada ka horeysa ama 5 sano ee ka horeysa barnaamijkiisa diyaarsada leadershipkiisu ay soo baxdo ama xukunka qaban kara ama loyal opposition noqon karana inama soo marin markaana inama soo marin baltaan ka soo gudbo 1990kii ilaa haddana taariikhda elayn inkastoo dhalinyarada 30 jirka iyo waxa ka yar ayba 70% meelaha lagu tilmaamo waxaan u malaynayaa rag badan oo shirkii burco ka qayb galayna waaba joogan ama waa noolyihiin oo magaalada Boorame joogan kii magaalada Boorame lagu qabtayna waa joognay dee shirarkaas shirar beelay ahaayeen beela kala xoog badan Boorame iyo Laascaanood iyo Aagga iyo Ceergaabo iyo jabhada ma jirin dee sanam jabhad bay ahayd dhowr qof oo reer Boorame ah oo Cabdiraxmaan oo Cali uu ka koow yahay ama reer Laascaanood ama reer Ceergaabo yaa SNM Central Committee-geeda ku jiray afraad bay ahayd u malayn maayo dhowr iyo 10 qof wax ka badan inay ahaayeen haddana cidda isu aragtay inay maamulkan iyo ku leeyihiin oo Somaliland awoodeeda ay leeyihiin SNM bay ahayd anigu qabiil farta ku fiiqi maayo laakiin SNM bay ahayd markaa hore shirkaa horena shirbeeleed buu ahaa kii halkana shirbeeleed buu ahaa Maxamed Ibraahim Cigaal baa lagu doortay ninka intiisa in loo qiraa haboon ninkaasuna nin siyaasi ah oo rogcadaay u ahaa qualities uu lahaa oo dhibaatooyin badan oo markaaba lala soo kulmay nin ka dabaashay buu ahaa dastuurka iyo xoogaaga la sameeyayna nin door cad ku lahaa buu ahaa laakiin haddana siyaalo aan dawladnimo iyo qarannimo lagu sii wadi karayn iyo wax ku dhaqayay laga yimi nin baa dhaxlay madaxtooyadii reer Boorame hadda xisaabaadka la yiraahdo baashu waa wareegtaayo qoliyahan darafyadu maxay sheeganayaan horta madaxweyne ay noqdeen war nasiib bay ku noqdeen nasiib bay ku noqdeen markii dambe ee la doortayna runtii nin raganimadiisa iyo aqoontiisa ku meel maray buu lahaa waa run xisbi uu ka tirsanaana waa jireen laakiin nin system kana yaqaana haddaad intelligence agent aad tahay oo aad hawlaha ku soo jirtayna xamar banaadir baa laga yidhaahaa quraanjada iyo gaalka aqligiisa iyo indhiisa midna lama arko haddaad intelligence officer aad ahaan jirtay
sidaa quraanshada iyo caqliga gaalka yaad moodaa in riyaale inuu markii dambe meesha ku joogay calaa ay xaal war qayb ma ahayn la isla gartay oo uu meesha ku yimi ma ahayn madaxweyne ku xigu qaybta ku yimi waxaan uun rabaa in aan idhaaho war walwalka innaka ina haya darafyada haya war innaku gudaheennana dagaalla inagama dhexdhicin laascaanood dagaalla hadda dhowaan ka hor dhexdooda kama dhicin booramana dhexdooda xoogaa xan gudahooda way iska jirtaa la isxantaa laakiin dagaallo kama dhicin war beesha dhaxay dagaalladu ka dhexdhacay calaa ay xaal anoonba meeshii aan rabay gaadhinba yaa la leeyahay allahan baan lagu daaray calaa ay xaal war cidda isdishay ee hargeysa isku dishay ee berbere isku dishay ee burco isku dishay ee magaalada berbere kufsadkii ka dhacay ee aynu nidhaahno xamar war kuwa isku dadba ma nihin war nimanka gabdhaha iyo sodoha kufsanaya war berberey ka dhacday war in la iska indha tiro maaha war darafyada haddii la waayo hab ay Somaliland la wada leeyahay ay ka mid yihiin wax ka xaaraana iyo wax oran karta dagaal kama dhici doona hargeysa iyo burco iyo berber gudahooda ma jiro waana soo martay waana ina soo mari doontaa darafyada aan warka u gudbo aan rabo inaan idin la wadaago oo ah dawladaha Afrika marka dawladnimo la helo waxaad moodaa in lays cunsiyo habkii hore dhaqanka ahaa ee traditionalka ahaa iyo habka cusub dimuqraadiya iyo hab cusub oo maamul innaka teenii hore Uganda ilaa 6 boqortooyaa jira hab intaan Ingiriiskuba iman nimanka bagandhadu habay isku xukumaan oo boqor ku leeyihiin oo hawlahooda ay ku fushaan bay lahaan jireen waliba waxa kabas kaga sii cadcada ashaantiga ama dadka akaanka la yiraahdo Ghana ama Northern Nigeria example ka se ugu fiican ee sida traditional system of governance iyo cusub la isku lifaaqo wadanka Botswana ya example fiican ah innaku meelaynu u noqono oo traditional system of governance ah ma ayna lahayn habaynu isku xukumno British anthropologist oo Lewis ka mid yahay iyo professor Casey Evans Pritchard waxay ka hadlaan dad yow la yiraahdo syphilis ama aan madaxba lahayn hierarchy kala aan ahayn innaka teeno waligeenba abtirsiino iyo waxaan sheegno laakiin laba nin oo walaala hadday isqabtaan iska daa cid ka sii fog ka un markaa islaama yaraa yaa shangeedii ka guuro yidhaaha waaba ka guuraya meeshaadan iyo waxaan yabaqaaqan waa ka tegaya war system of governance oo aynu dib ugu noqonno oo wax ku qaybsanno oo aynu ku kalsoonahay oo ku lifaaqi karno ta modernka ma hayno waxa aynu haynaa yabaq iyo reer guuraannimo iyo institutional systems ka loo baahan yahay si maamul iyo hab siyaasadeed labadaba loogu dhaqmo ma hayno waxaynu haynaa taa qabyaaladda ah ee marba dhan loo yaacayo qabyaaladda shirka burco sidii uu sheegayay maxamed buu ahaa kii lahaa meesha waa la isugu tegay warkaa waaba jeclahay 17 iyo 15 qof ee wax saxeexay anigu memorygaygu hadduusan khaldanayn war meel la isku raacay oo Somaliland baanu wada dhisaynaa oo dalka la kala gooynayaa document jira anigu ma ogi waaba maqlay meel anoo fadhiyo laga khudbaynayo cali khaliifkan ina la fadhiya wax ka saxa war ma saxiixin waxaan rabaa haddii la xisaabtamayo
meelaha laga xisaabtamaye wada lahaanshaha ta ugu horeysa dee war horta meeshana ma inaga dhaxaysaa xuduudkan ma ku wada jiraa oo ma leenahay bas cid baa marti looga yahay oo cid baa military occupation markii hore ee 91 ilaa saylac lagu tagay military occupation buu ahaa oo magaaladan lagu qabsaday oo nimankii warbal waa arkaaye hadhowto hoos ugu sheego intaan anigu ogaan sheegayahay qolyihii 4th February maalintii dhaweyta ka mudaaharaadayay waa nimankaasi waxbay og yihiin ma aha inaan leenahay war maaha inaan leenahay xabaalo qufeen aan noqono oo mar walba waxaynu isku dilay isku nacnay aan dib ugu noqono laakiin runta inaynu isu sheegnaa haboon war sool iyo sanaag iyo dhu'aaga military occupation baa maanta jooga nin military occupation ana loomaba ogola talaba la weydiin maayo waxaan Hargeysa ku arkay dadka qaarkood siday ku fiirinayaan war ninkan miyuusan waaqaca la socon yaa ninkanu waaqaca ma oga miyaa haddana wargeel didii loogama hadho haddaynu xisaabtamayno war si dhab aynu xisaabtano war dastuurka maxaa ku yaal war dastuurku waxyi maaha war aan review garayno war wixii danteena aan ka eegano war dastuurka nin kale igama sheegan karo qabiil igama sheegan karo hadduu iga sheegtana waxbay isuma nihin dastuurka ana ma qaadanayo Soomaaliland kama mid noqonayo haddii la yidhaaho war madaxweynihii iyo saddexdii xisbi iyo anagu tirooyin dhab ah oo haddii dhab laga yahay in la isu yimaado la soo dhigayo war 17,000 oo qof baa civil service-ka Soomaaliland 17,000 wax 16 ku dhow waa beesha dhexe 16 hadda ciidamadana saraakiisha that is over 90% way saraakiishana over 90% way wala xoogaa iyo meelaha ka yimi iyo nina baanduula ku xigeena iyo fardi African Americaniska yaa markii civil rights ka la qaatay waxa la yiri waa in madowgu ay xuquuq yeeshaan civil service ka galaan oo ciidamada galaan shirkadaha iyo dawladuba mid feero weyne oo African American yaa kadinka hore la fadhiisiyaa cidii aragtaaba say u aragto tokenism baa la yiraahdaa tokenism warna ku tokenism ma rabnee aan xisaabtanne hadday shaqaalaha dawladda tahay hadday ciidamada tahay hadday judiciary-ga tahay hadday axsaabta tahay sheegaanuhu waaba iska badnaayeen nakaaba bilownay qoliyaha hadda berbera maraanu tagnayn baa yidhi waxaan ka walwalsanahay qoliyihiina wada socdaa waxaan urinayaa USB baad wadaan USB horta annaku USB runtii iskuma aanan xolan waxaan dhowr meelood ka idhi kuwaana maalintaa ku idhi mid waalan oo qori daba sitaale wareerka ha gubin war waabay xusuusteen buu yidhi waray warkii halka laga lahaa alla bari iyo raggii hore ay ku hadleen war aynu deganaansho iyo awalba samir baynu halka ku soo gaadhnay war haddii laynaga gardaran yahay war haddii danta Boorame iyo Laascaanood iyo Somaliland midna kaligeed isma taagi karto anigu waxaan qabaa war marmarka qaarkood bay haboontahay nacas inaad iska dhigtid nacas inaad iska dhigtid marmar bay haboontahay hadda maaha forever nacas in la iska dhigo waa haboontahay waxaynu ku hiranaynaa u soconnaa waa citizenship loo siman yahay hadda looma sinna haddaan citizenshipkii loo sinnayn tii qabiilka ahayd ee qaraxa ahayd ee wax lagu qaybsadayna meesha ma taallo oo xaggaynu wax ku sugnaa markaa oo nacasnimadeena aynu geed hoostii ula fadhiisanaa anigu waxay igu muuqataa annagu halka waxaan u nimi
oo aadba naga horeysaan war dadka in la dareen geliyo war waaqaca maanta Somaliland haysta and very strangely opportunities badan baa muuqda iminka Horn of Africa oo dhan buu ka muuqdaa Soomaaliyada halka joogta adduun weynuhu aad ula xisaabtamaya iminka Somaliland iyo waxa Soomaaliga ku hadlaaba opportunities baa muuqda anigu waxaan oran lahaa warbal maskax furan oo ninaad walaalo leedahay war anaa raba inaan Somaliland ka mid noqdo oo iska ka dhufta ama ku tusay inuu ku leeyahay anigu waa ka badnahay oo adee tira iguma gaadhid and therefore isku awood ma noqonayna war anaaba ku ogol inaad badan tahay laakiin awal xamar maxaad uga soo carartay yaa balaasalkeeda xamar waxaynu uga nimi oo saluugnay Soomaha marginalization iyo waxay aanu lahayn laysanka iyo baasaboorkan xamar ayaan darradu hadda baasaboorkii garooweynuba u dooranayna waxaan oran lahaa war maskax furan iyo isku kalsooni iyo kasbasho balse shablanaha lagu dayo mar walbana waaqaca yaalayaynan ka marin habaabin garcada waa la geli adiga oo prepared ah oo waxa jira iyo waxaad oranaysa warkanaanu ku bedelaynaa kana inooga fiicanba iyadoo diyaar leeyahay oo dad hawlaha inoo qaybsan inteena wax qawadaysa aynu u dirsanno waa inay jiraan waxaan inta aan ku dari lahaa khaatumo muddo 3 sano ku dhowaano hadda la wadnay negotiation Somaliland meelo badan baan isla soo marnay waxbaanuna isla ogolaano isla dhadhaweynay madaxweynihii hore yaanu bishii October 20-keedii 2017 heshiis wada galay baarlamaanka Somaliland waa ansixiyay war markaan leenahay dastuurka hal lagu noqdo oo wadankan wadan rule of law aaminsan ma yahay wartana midaal ka ah war madaxweynaha wuxuu saxaxay ee baarlamaankii ansixiyay awoodda qofka oranaysa priority ima aha sug adeero aan suga intee suga bal waqti qabso adigu ya annaku nacasnimada barnaamijkeedana soo wadnay warna la wada waxaynuna waxuun ku gaari karnaa oo waxa yaree la hayo aan qawadno warsahan kale inoo maqan iyo wax kale inuu ku doorsan karnaa ma jiro hadduu san jirin tana ilaahay ina badaye sidaynan uga daalin oo u quusan falowgeedna aan qabanno cid rumaysanaysa oo maamulka maanta jira rumaysanaysa cali khaliif baale waraan wax sugno waxa balaleeyay ninkano wax cirka iyo dhulka u dhaxeeya yuu kaba hadlaya war waxaan ka hadlayaa war waa hadaa doonayso qabiil bayn qabyaalad baynahan ama hab dawladeed oo shaqaalaha dawladda habka loo qorayo iyo sida mas'uuliyadaha la siinayo ninka hadda Bashiir ee la geeyay Washington mooyee qof kale oo darafyada ka yimi oo adibadaha anagu aan ku aqaa oo aan ahayn mid xoogaa xafiiska iska jooga anagu ma aqaano aad iyo aad baad mahadsantiin laakiin samir aan ogaan su'aashan toos bilaabaya su'aashadu waxay ku socotaa Professor Ahmed Ismaaciil Sabata su'aasha koowaad ku weydiinaya waxa weeye project-kan identity-gaaga noo sheeg ma waxa tahay siyaasi reer Somaliland ma siyaasi gada kursiya tahay mise siyaasi hoos u sii soconayo oo tahay karaysa okay identity-da aan leeyahay noocyo badan bay leedahay baan ku yiri anu marka ugu horeysa marka de qof gaadhay oo nina oo muslim inta marka soo dhaafto ya reer Somaliland baan waan ku dhashay wadanka anu kiina identities kala baan leeyahay siyaasad bay noqotay that's your point siyaasad bay noqotay anigu siyaasad inay Somaliland dhisato waan doonayaa xisbi baan galay
ma kama dhuunto xisbi kulmiye la yidhaa ayaan galay campaign baan u galay ilaa imikana waan ku jiraa wax badan baan ka critique gareeyo on kuri wax badan baa qaldan ilaa hagaajiyo weeyi caawa waad maqasheen critique soo maad garan de intaana inay kugu filnaato political identity for now waa halkeega mustaqbalka we don't know taa halkaan kaga haro ayaa su'aashaydu waxa weeyaan khalad kan la rabo in la saxo dadkii sixi lahaa ma joogaane ayaa la rabaa inay saxaan qof walowba awood baad u leedahay inaad kaalin ka ciyaarto siyaasadda Somaliland halka ay ku socoto haddii wax la bedelayo halka loo guurayo waxaasoo dhan you have a right to participate in that so all of us are actors in this great drama thank you very much Professor Samatar waxa weydiinayaa shalay koonfur markuu tagay ee uu Soomaali u ololeynayay wuxuu soo ogaaday in Soomaaliya ay qabiil tahay oo ay reer gaar u xidhan tahay maanta wuxuu joogaa Somaliland ma aaminsan yahay Professor Samatar Somaliland in reer gaar u xidhan tahay mise wuxuu aaminsan yahay Somaliland in reeruhu wada leeyihiin su'aashaas aan weydiinay ahayd xamar baa tagtay waxaad soo aragtay siyaasaddii Soomaaliya inay laba community u xidhan tahay anu kelmad Ingiriisi aan taa u abuuro la yidhaahdo duopoly marka halkan miyaan monopoly aanay u ekayn baan filayaa su'aashu inay tahay monopoly waa one rule duopoly waa laba qof oo meel wada leh anu waxaan qabaa inaanay monopoly ahayn maaha here is the reason hadday monopoly tahay daahir riyaale siduu madaxweyne ku noqdo hadday monopoly tahay okaadi aan ismaqalna dee haddaad jawaabta aanad jeclayn adkayso please adkayso aan ismaqalna anu waxaan qabaa monopoly ma aha daahir riyaale madaxtinimadiisii iyo doorashadiisii baa ka markhaatiya laakiin khatar baa jirta inay monopoly noqon karto eegad inay noqon karto monopoly noqon karto two waxa weeye xisbiyada markii la furayay anu xisbi baan ka mid ahaa dadkii abuuray xamar waan tijaabinay xisbi baanu abuurnay xisbiga quru sida runta ah waxa kale qof socdo ordayahay xisbi hiil qaran la yaraa baanu abuurnay gegadii kubaddaanu keenay waa la nala garan waayay maxaan ku dhahay duopoligii baa albaabkii xidhay okay xisbi anu waliba tolkaan ku leeyahay xisbi maxaa loo abuuri waayay markii xisbiyada la abuuriyay maxaa loo abuuri waayay xisbi maxaa loo abuuri waayay haddii lagu yidhaaho xisbi ma abuuran kartid haddii intaad xisbi abuurto qof ka soo baxo tolkii uu gegada la tago oo marka albaabka laga xidho dee waa la odhan markaa waxaan odhanaa monopoly baa meeshan jira laakiin anu waxaan qabaa su'aasha aan la isweydiinayn waxa weeye maxaa tolku xisbi u furan waayey wakhtigaasi markuu taagnaa imikana way soo socotaa ma lagu dhici karaa in xisbi la furto waxay ku socotaa Professor Cali waxay tahay bari iyo galbeedba waad soo bayaamiseen dhibaatooyinka jira si aqoon sare ah ma idin qorshaysan tahay inaad xukuumadda talada haysa hor fadhiisataan idinkoo wada socdo bari iyo galbeedba waad isu marteen weli bari maanan tegin waase rabnaa inaannu tagno haddii tii axmed ku dhacday la yidhaaho aniga cadami ma tegi kartaan badhan iyo laascaanood dee isu naalle markaa cidda nagu odhanaysa ma tegi kartaan maxay sababtu tahay burco waa tagnay berbere waa tagnay hargeysa wakhtigii oo dhan baanuba meelahaasu ma mustacmaradan loo oggolayn tabliiq siyaasiga ama doodan furan midhayn meelaha military occupationku ka jiro lama tegaya miyaa walwalkiina hayay bay caddaynaysaa waxaan rajaynayaa inayan dhicin annaku mar walba diyaar baan u nahay ciddii Somaliland ee magaalooyinka aan tagnay dad baanu ka barannay dhalinyaro odayaal dad arrimahan dhab ay ka tahay oo
raba inay doodii timaadaba ka qayb galaan network baa saa ku dhisma karta iyo xidhiidh iyo iska warhayn taa waa jecelahay inaanu saa u dhisno haddiiba hadda qalinka hoosta ka mari haddiiba ay noogu muuqato tallaabo siyaasiya in la qaadana oo tabliiq siyaasiga inta laga gudbo siyaasad la dhex galana kow anigu han siyaasadeed ma lihi hadda aan ku celiya haddana dadka qaar baa u haysta inaan dhuumaalaysi waxaan u wado war waxba Somaliland kama rabo xal muxuu ah mansab siyaasadeed kama rabo dhaqaale kama rabo laakiin wanaag iyo mustaqbal fiican oo ummadan ay ku wada noolaato taasun baan isleeyahay wixii aad ka dhiiban karto ka dhiibo maanka ma ku haynaa inaanu dawladda hor fadhiisano dee waanu warsan waana ku tala jirnaa hadday ogolaanna ahlan wa sahlan haddayna ogolaanna waraaba wax la yidhi warkaba ha lagu tolo dhimatay aade markaasi wallaahi haddii lay tolana alxamdulillaah haddaan lay tolina rabbil caalamiin saa awalba kaba ma lahayne annaku waa rabnaa waana jecelahay ciddii ay arrintan khusaysaba inaanu isor fadhiisano ka doodno sidan oo kale dood la'aan war sugan la iskama heli karo xan iyo war mid gudbiyay dana leh iyo balaayo dhuxulayso oo warka qaado oo waxaa tidhi iyo waxaadan odhanba gudbisa kuwa waqti ma siinayno waxay sheegayaan ha sheegeen wayna eedi laakiin waxay dhab ah ee dawladdu ay kow ka tahay waa jecelahay in la isor fadhiisto in la doodo in garowshiya la isa siiyo inaan bahasha cidina qumbahaas liglaga qabsan oo odhan ma sii daynayo fakar intuu keeno shayda anigu waxay ku wajahantahay Dr. Cali Khaliif Galeyd waxaan weydiin lahaa wadankan horta ra'iisul wasaaradka gaadhay Soomaaliya oo title-kii ugu sareeyay kadib waxaad noqotay gudoomiyihii baarlamaanka ayaad isu sharaxday jabhad baad noqotay oo khaatumaad aasaastay waxaan weydiin lahaa boorama xumaaniya samaan waxay ku qabtay Soomaaliland hore bay u haydeen laascaanood damaanad qad ma uga wada Soomaaliland baan weydiin lahaa mise tabliiqa siyaasiga waa arin adiga ku gaara wad mahadsantihiin dadka dhulka jooga Soomaaliland nimadooda cidna marti uga ma aha haddii se ay ku qanci waayaan hadday ku qanci waayaan war Soomaaliland baanu nahay oo danaha iyaga oo ay kow ka tahay horumarka iyo wanaagga Soomaaliland iyo qaybtaanu ku leenahay aan xaq ugu leenahay inaanu helno haddii taas ay suurtoobi weydo dadka dib dambe loo qancin karaa ma jirto midaal baan ku siinayaa maalintii heshiiska aan saxeexnay aniga Siilaanyo qiyaastayda hadda waa khaldami karaa qiyaastayda waxaan isleeyahay dadka dhulka ku nool 80% ama Somaliland bay u arkayeen dantoodu inay ku jirto ama waa u janjeereen waa faanta xasan oo Soomaa haddii aanu hadda heshiiskaasina uu jiray muddo mar 7 bilood oo horaan joogay magaalada Hargeysa haddana bishii saddexaad baa ii socota waxaanu joogaana waa heshiiska madaxweynihii uu saxeexay waa heshiiska baarlamaanku uu ansixiyay haddii ay noqoto halbacaad lagu lisay de waxaan u malaynayaa waxay uu noqon doontaa dadkaas oo haddayan ka mid noqon oo loo arag oo ayan iimaansan inay Somaliland ka mid yihiin la ikraaha fi diin cid la khasbi karaa ma jirto gabadhu su'aashay weydiisay si fiican uma maqal laakiin waxaan u malaynayaa inay duluucdeedu ahayd haddii aad muddo hawshan ku soo jirteen haddana aad bedeen in dadka shacabka reer Somaliland
risaaladan loo gudbiyo oo war dhaba ay arrimahan ka hayaan waa run waxaan u aragnay inay tahay asluub loo raaci karo ummadda inaan been loo sheegin ee annakoo inaannu dhex gallo dee waa su'aal wanaagsane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق واسقل عبد الله عبد الله مقعيق واسقل عبد الله عبد الله waxaan weydiinayaa su'aal professor maxay tahay galayd waxaan kamid ahay dadka ka soo jeeda gobolada SSC waxaan kugu ogeyn dawlad la yiraahdo Khaatumo Ali meel noogu sheeg maxaad noo haysaa hadaanu nahay shacabkaas su'aasha burcana waa la iga weydiiyey burcana gabadh baa iga weydiisay gabdhuhu waxaan u malaynayaa dee kollayba awalba Khaatumo meeshay ka noolaydba awal xagga haweenkay ahayd inay dhulka u dhalatay iyo inay dhaxdin tahay waayadan dad badan oo xagga ka yima xagga uu soo aadee labadaa inaan kala ogaado waa jeclaan lahaa laakiin ha sheegin middase hawshaas ama meel baan ku ogaanaynaa oo heshiiskiibaa meel mari ama waxay noqon ummaddiinnaasay idinku tashada intii aannu annaku yeeli karnay waxba kama aanan hakran waa suurtoobi weyday tala idinku dib isugu noqda marba waxay ku tashadaanna yay noqon ka ragoo laba saar hadday noqonayso oo ay noqonayso haddana aan dib u jabhadayno iyagay u taal laakiin midda cidda dembiga leh ee taariikhduna sheegi doontaa waa ciddii heshiiskaas aanu hagar bixin oo hadday diidayaanna ku qariya guncadee kaalay oo sheeg waxaad ku diidayso keen oo dadka soo hordhig wax allaala waxaad ku diidaysaa haddayn ahayn ee anaanba rabinna dee yeelka